xidiga u tartami doona xidiga ugu fiican toddobaadka Champions League oo la shaaciyay Antonio Conte oo sheegay inuu ku dhawaaday inuu Chelsea keeno Virgil van Dijk waqtigii uu joogay iyo Thomas Tuchel oo ka hadlay guuldaradii kooxdiisa ka soo gaartay naadiga Lazio. dhammaan warbixinadan ayaa muuqaalkan kula wadaagaya ay soo dhaw daawade balse marka hore like muuqaalka oo si share gareeyo saaxiib badan u gaaro haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro follow dhaho boga sameel cadaala si aad u hesho warbixinada ciyaaraha kubadda cagta haddii aad igala socoto bartay TikTok ku soo bir oo follow dhaho sidoo kale dir 3 jeer iyo wax ka badan ii taabo calaamada copy link si uu dad badan u gaaro sidoo kale soo booqo bartay YouTube ee sameel cadaala waad ku mahadsan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga markasta maasanid. UEFA ayaa soo saartay xidiga u tartami doona xidiga ugu fiican toddobaadka Champions League waxaa la ciyaaray kulamo xiiso leh oo ka tirsanaa wareegga 16 ee tartanka Champions League. waxaa jira xidigo wax la dhigay kulamadii la ciyaaray Talaadadii iyo Arbacadii. UEFA ayaana soo xulatay 4 xidig oo u tartami doona in loo caleemo saaro xidiga ugu fiican toddobaadkan Champions League. xidiga Brahim Diaz, Kevin De Bruyne, Mbappe iyo Matteo Guendouzi ayaa ku tartamaya awaamirta xidiga ugu fiican toddobaadka Champions League. afartan xidig ayaa kooxahooda ku hogaamiyay inay guulo ay ka gaaraan kulamadii lugta hore oo ay ka ciyaareen tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League wareeggiisa 16 oo toddobaadkan si toos ah looga ambaqaaday qaaradda Yurub. afartan xidig ee Brahim Diaz, Kevin De Bruyne, Mbappe iyo Matteo Guendouzi ayaana midkood noqon doona xidig ugu fiicnaa kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. dhinaca kale tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Chelsea Antonio Conte ayaa sheegay inuu doonayay inuu la soo saxiixdo Virgil van Dijk xagaagii 2017 balse ma dhicin inuu laacibkaasi uu la soo saxiixdo. daafaca dhexe oo soo ciyaaray Southampton waqtigaasi ayaa ku biiray Liverpool suuqii January, laakiin kabtanka Liverpool ee haatan ayaa xiran lahaa maaliyadda buluuga ah ee kooxda kubadda cagta Chelsea. taariikhdeeda ayaa sheegaysa inaan mar walba ku iman jiray kooxahayga xaalad adag oo dhibaato haysato mar walba waan dhisaa. Conte ayaa sidaasi ku yiri waraysi uu siiyay Telegraph kadib xiliyaareedkii ugu horeeyay ee kooxda Chelsea markii aan ku guuleysanay horyaalka Premier League. waxaan noqon karnay kuwa ugu awood badan gudaha Ingiriiska. waxaan maamulka Chelsea ka codsaday inay keenaan Virgil van Dijk sababtoo ah waxa uu naga dhigi lahaa kuwa ugu awood badan gudaha Ingiriiska iyo hadalkiisa sii raaciyay tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Chelsea Antonio Conte. horey u soo hogaamiyay naadiga Juventus oo isagu sheegay in waqtigiisii Chelsea uu ku dhawaaday in kooxda Chelsea uu keeno laacibka waqti xaadirkan u ciyaara naadiga Liverpool ahna kabtanka kooxdaasi Virgil van Dijk oo xilligaas u ciyaarayay kooxda kubadda cagta Southampton. dhanka kale tababaraha kooxda kubadda cagta Bayern Munich Thomas Tuchel ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay guuldaradii kooxdu ka soo gaartay kooxda Lazio kulankii xalay ee tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. Thomas Tuchel ayaa ku yiri war-saxaafadeedka ciyaarta kadib qaybtii hore si fiican ayaan u ciyaarnay, waxaan helnay fursado badan oo aan goolal ku dhali karno, laakiin waxaan luminay xakameynta iyo tiirada qaybtii labaad. ma garanayo sababta ka dambeysa. macalinka ayaa intaa ku daray wax walba ayaan sameynay qaybtii labaad ee ciyaarta si aan ciyaarta ugu badino. kulankii xalay waxa uu ahaa mid gacanteena ku jiray, balse mar-uun waxa aan joojinay inaan aamino awoodeyna iyo inaan guuleysano. Tuchel hadalkiisii wata waxa uu yiri waa ka niyad jabay waana ka xanaaqay guuldaradii xalay soo gaartay kooxda Bayern Munich. macalinka Bayern hadalkiisii wata ayaa yiri waxaa jirtay qaybtii hore ee ciyaarta waxyaabo aan ku sii ambaqaadi karna kulanka, waxaan abuurnay fursado badan oo wanaagsan. waxaa jirta fursad weyn oo uu helay Jamal Musiala, laakiin ugu dambeyntii hal shoot oo goolka ma aan helin, sidaas darteed kuma badin karno sidan oo kale. laakiin waxaan leenahay kulanka lugta labaad ah waxaana sii wadi doonaa inaan ku shaqeyno dhammaanteen tamarteena, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey tababaraha kooxda Bayern Thomas Tuchel oo isagu xiliyaareedkan cadaadis baan uu saaran yahay kadib markii xalay kooxdiisa laga adkaaday tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League, iyadoo sidoo kale hogaanka horyaalka waddanka Jarmalka ee Bundesliga ay ka hayso naadiga Bayer Leverkusen ee hogaamiyo laacibkii hore Liverpool iyo Real Madrid Xavi Alonso. Thomas Tuchel ayaana isagu cadaadis baan ka wajahaya guuldarooyinka ka soo gaaray kooxdiisa tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League iyo sidoo kale Bundesliga Jarmalka oo toddobaadkii hore ay ka adkaatay naadiga ay ku xifaaltamaan xiliyaareedkan ee Bayer Leverkusen.